kulankan ay ka soo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane Cabdiwaxiid Ibraahim Axmed, agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Titor Nuur Diiriye Xirsi, madaxda bangiga IBS Bank iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo bandhigay qalab ku shaqeeya ilaaska cadceedda qoraxda. Mashruucani waxaa fulintiisa lahaa bangiga IBS iyadoona uu maalgelinayay World Bank, waxaana mas'uuliyiinta kulanka ka soo qayb galay dhammaantood ay qireen sida shacabka Soomaaliyeed xilligan ay ugu baahan yihiin koronto laga dhaliyo ilaaska cadceedda si dadka ku nool miyiga loo gaarsiin lahaa adeeg, maadaama uu ka qiimo yar yahay adeega koronto ee hadda laga isticmaalo gudaha dalka. Gudoomiye ku-xigeenka bangiga IBS Cabdirasaaq Cali Warsame ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay faa'iidada uu leeyahay adeegani. runtii waddankeenu wuxuu galay waqti cusub oo horumar waqtigaas ayaa waxa maanta IBS wuxuu qayb ka yahay horumarkaas hadda bilowday waddankeenu waqtigii development-ku galay waa ka soo baxay waqtigii kaalmada iyo waa ka soo baxay runtii infrastructure-da ka qayb qaadanaya dhismaha iyo energy-gu number 1 ka yahay wax laga maarmana ma aha runtii waa taasaan maanta usoo joognaa oo arrin runtii ka turjumaysa horumarka waddanka ah. marka aadan idinkaga mahad celinayaa barnaamijkan qiimaha badan oo qayb ka yihiin wasaaradda ay lead ka tahay wasaaradda macdinta iyo biyaha, World Bank-guna ay qaybta fanka ay qayb ka tahay, IBS-na uu fuliyaha ka yahay. agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Titor Nuur Diiriye Xirsi Fursade oo isna goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay adeegani isagoona sheegay in xilligan loo baahan yahay in la helo adeeg ku shaqeeya ilaaska cadceedda. dhalinyaradu waa inay is aamintaa dawladdu ma ahan wax kasta ma qaban karto. dawladdu waa dadaalaysaa, idinka dadaala. marka howlahan kale loo baahan yahay energy-ga marka waa asaaska arrimahaas waaye energy iyo technology-ga. shirkadaha yar hal la waxeeyo waxa la qabto dhiba imaana lacaga loo baahan yahay waa sax, caalamka laga qayb galo. IBS waa example fiican, waxaa jiro kala shirkado kale wax qabtay faa'iido keenay. ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane Cabdiwaxiid Ibraahim oo mashruuca daahfuray ayaa tilmaamay in mashruucani wasaaraddu ay muddo ka shaqaynaysay, isla markaana in ilaaska cadceedda laga dhaliyo tamarta ama koronto ay tahay wax loo baahan yahay, isagoona ganacsatada ugu baaqay in deegaanada ka fofog magaalada Muqdisho la gaarsiiyo adeegani. maanta waxaanu insha Allah aanu tilaabo kastaba aan hore ugu qaadaynaa sida aan u horumarin lahayn tamarta dalkeena. maxaa weeyaan infrastructure-kii tamarta in la dhiso, waxa weeyaan human resource-kii tamarta ka shaqeyn lahaa in la sadgareeyo, ayaa marka kaasi ay wasaaraddu ku howlan tahay in yacni la baahiyo tamarta ee aanan lagu soo koobin magaalooyinka keliya, ee la gaarsiiyo meelaha fogfog ee baadiyaha ah si loo helo tamar nadiif ah oo dadku jaban ay marka kaasi noloshooda ay ku maareeyaan. mashruucani ayaa haddii uu ka dhaqan galo gudaha dalka wuxuu muhiimad u leeyahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo xilligani qaarkood aan awoodin qarashaadka lagu bixiyo korontada dalka. Cabdulqaadir Fantastic, warbaahinta qaranka.